Waxay tiri waxaan gaaray xilligii guurkayga. Aabahayga wuxuu igu yiri, Aabe, qofkaad istiraadid. Midkaan ayaa guurkaygu ku habboon. Aan mustaqbal la wadaagaya. Ii soo dir aabe, hal su'aal ayaan weydiinayaa. Kadib waad guursanaysaa. Waayahay ayay ku tiri. Nin walba oo imaado oo ay isfahmaan aabaheed ayuu u diri jirtay. Hal su'aal ayuu weydiinaa. Kadib asagana wuu iska fasixi jiray. Markaas waxay ku tiri nin dhakhtar ah oo dhaqaalaha haysta dhanka dhaqaalaha ka fiican ayaa u yimid. Waxay ku tiri aabahayga aad. Aabihii ayuu yimid. Wuxuu yiri kac orod. Gabadhii aabaheed ayuu u timid. Waxay ku tiri aabe, nin walba aan kuu soo diro maxaad u diidaa? Ma waxaad rabtaa inaan guriga mar walba aan kaaga shaqeeyo? Aabihii waxba kuma dhihin wuu ka aamusay. Kadib ninan sida xoolo dhaqaale waxba aan haysan ayaa u yimid. Wuu la sheekaystay. Aabaheed markuu u yimid wuxuu ku yiri hal su'aal ayuu weydiiyey. Waa ku sii gabadhayda. Guurkoodii ayaa dhacay. Way isla joogeen 5 sano kadib. Aabihii ayaa geeriyooday. Markuu geeriyooday, duugtii ay soo dhamaatay, gurigu ku soo laabtay. Gabadhii u laabta geliyay. Markaas waxay tiri waxaan ku weydiinayaa aabahay weydiimaheed. Markaas wuxuu yiri nin walba su'aal ayuu weydiinay wuu ka tagay. Aniga wuxuu weydiiyay haddii aan dhinto gabadhayda sideed ula dhaqmi doontaa? Markaas waxaan ku yiri haddii aad geeriyooto gabadhaada ma dareensiin dooni in uu aabaheed geeriyooday. Naxariis ayaan u muujinayaa. Maadaama aan booskaaga buuxin karin, laakiin waa isku dayaa inaanan dareensiinin inuu aabaheed geeriyooday. Markaas wuxuu ku yiri ma waxa ayaa jiro aad iga tabanaysa 5tii sano aan isla joognay? Markaas waxay ku tiri maya waxba kaama tabanayo. Way oyday. Kadib noloshoodii ayay horay u sii wateen. Qisadan waxa aan ka qaadanayno waxay tahay aabo walbo inuu gabadhiisa u dooro nin naxariis badan. Gabadhu wax walbo adduunyo waa la heli. Laakiin naxariistu qof walba ma haysto waa dhalad oo Rabbi qofku u dhaliyo. Midda labaad waxay tahay nin sheekh ah oo safar ah oo wadada socda ayaa waxay ka hor timid haweeney oo aad u faraxsan oo dhoola cadeynaysa. Markaas intuu ku soo leexday wuxuu ku yiri waxaad ii sheegtaa maxay tahay sidaan deganaantan farxadaanay? Wuu weydiiyey wuxuu ku yiri maxay tahay deganaantan? Markaas waxay ku tiri deganaantanayta gadaasheeda ay wax jiraan iyo farxadaanayta. Markaas wuxuu ku yiri maxay tahay qisadaada bal ii sheeg? Waxay tiri waxaan lahaa zawj aad u qaylo badan laakiin ii gacan furan oo ii wanaagsan laakiin wuu qaylo badnaa. Waxaan lahaa 2 wiil oo aad ii dhaga nugul oo ii fiican oo maasha Allah. Markaas waxay ku tiri carafadii aan hadda soo dhaafayni ayaa ninkeyga wuxuu gowracay ari. Kadib labadeydii wiil midkii weynaa wuxuu ku yiri siduu aabba sameynay ariga ku sameynay ma kugu sameeyaa? Ma kugu tijaabiyaa? Wiilkii yaraa wuxuu ku yiri waayahay. Mindidii ayuu soo qaaday qoortii ayuu ka jaray ayuu ka gooyay. Dhiigii markuu arkay midkii weynaa wuu baxsaday. Duurkuu aaday. Sida ayaa dhurwaagu ku cunay waraaba. Midkii yaraa sida ayaan ku waayay kii weynaana siduu u baxay maana arag. Aabihiisa intuu yar sugay buu wuxuu yiri anigaa doonayay bal sug. Ninkeygana sida ayuu ku baxay. Asagana sida ayaa waraabihii ku cuneen.
4 bilood maana arag. Kadib noloshaydii murug iyo dhibaato iyo oohin habeen iyo maalin ayaan ku jiray. Nafsadayda waxaan ku yidhi maxaad la murugoonaysaa? Soo ma ahayn ammaano Ilaahay kuu dhiibtay carruurtaada. Haddana Ilaahay sooma kaa ceshinin. Markaasaa nafsadayda waxaan ku yidhi alxamdulillaah dheh. Markaasaa maalintaas kadib waxaan dhahayay alxamdulillaah, alxamdulillaah. Qalbigaygii boog yar ayay ahayd. Boogtiina sidaa ayay ku tirtirantay. Noloshaydii farxadda ahayd ayaa ii soo laabatay. Markaan nicmada ku jiray waxaan dhihi jiray alxamdulillaah. Maantana waxaan leeyahay alxamdulillaah. Wax walbo aad ku jirtana waa imtixaan adduun. Haddii aad dhibaato la kulanto waa alxamdulillaah oo waxaa laga yaabaa waxaasayda inay khayr kuu ahayn. Haddii aad khayr ku dhex jirtidna waa alxamdulillaah oo waa inay khayr kuu tahay. Mida saddexaad, wiil yar ayaa kabtiisa badda dhexdeeda ugu dhuntay. Markaasaa wuxuu ku yidhi wuxuu ku aqoray baddaanayta waa tuugo. Nin dhalinyaro ah ayaa asagoo baddii ag maraya waxaa soo ag maray malay aad u weyn. Markaasaa wuxuu yidhi baddaanayta waa deeqsi. Nin oday ayaa u yimid baddii. Wuxuu ka helay diamond. Markaasaa wuxuu ku yidhi baddaanayta waa deeqsiyad alxamdulillaah. Wiil yar asagoo baddii dabaalanaya ayaa baddii liqday. Sida ayuu ku geeriyooday. Markaasaa hooyadiis intay baddii hor timid waxay tiri baddaanayta waa dilaa. Ayay ku aqoortay. Cabaar kadib baddii hirkeedii ayaa soo kacay oo wixii dhulka ku qornay dhammaan way tirtirtay. Marka qofka bini'aadamka ah dadku waxay agtaada ka sheegayaan qiimo weyn ayay kula lahaa. Waxa ay dadka agtaada ka dhahayaan aysan wax weyn kula noqonin. Noloshaada ha ku noqoto mid adiga hogaaminaysid ee dadka agagaarka ah ay ku hogaamineen oo waxay ku dhahayaan aysan ku saameynin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.